arday dhigata dugsiga taxfiidka quraanka ee Daarul Huda ee ku yaala magaalada Gaarisa ayaa xaflad qalin jebin loo qabtay taasi oo ay ka soo qayb galeen waalidiinta macallimiinta iyo ardayda dhigta qaar kamid ah ardayda ayaa halkaasi ku soo bandhigeen waxyaabihii la baray Bismillahir Rahmanir Rahim سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أهلا بكم في ذلكم لما حضرتم لنا النور أشرق حولنا يقول رد رحمة الغفور دوما سليمان والجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا qaar kamid ah culimadii ka soo qayb gashay munaasabadaasi ayaa waalidiinta ugu baaqeen in caruurta la baro quraanka kariimka ilmigu waa mid kaliyeed qofka bini'aadmiga uu ku baasmar uu ku noloshiisa ku najaxdo ilmiga waad baran kartaa waxa la rabo waxa weeye cunugan inaad fiiriso muxuu bartay edabtiisa maxay tahay mustaqbalkiisa muxuu noqon doonaa cunug ilmihi hadda maanta meesha wax akhrinayay dadkii dhalay waxa saaran culays badan baa saaran dadka ilmahaas waxa baray ee cunugaada carabkiisa u toosiyay maalintaad u keenayso cunugan muxuu garanay waxa muuse garanayn ardaydii maanta ka qalin jebisay Daarul Huda ayaa dareenkooda la wadaageen warbaahinta ista Ruida Ahmed Maxamed كمان ardayda ka qalin jebisay markas Daarul Huda لتحفيظ القرآن الكريم waxaan dacilna waalidiinta iyo macallimiinta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ديني جامعة عليها مركز Daarul Huda maanta ka bugnay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dufcadii lixaad baan nahay الحمد لله رب العالمين إلهي ما هذا كلام معلمين تيدا يوالدينتي aad baan ugu mahadcelinayaa alxamdulillah rabbil maamulaha xarunta Daarul Huda ayaa inagu warbixiyay taariikhda dugsiga iyo waliba ardayda maanta qalin jebisay magacaygu waa Cabdijabaar Ciid Xasan waxaan ahay mudiirka markaska marka koowaad Ilaahay ma iskale noo suurtageliyay maanta xafladan markaska Daarul Huda haddii aan ka sheekayo taariikhda markaskan marxalado soo maray waxa la asaasay 2014 كما لو كنت طبعا أفرتي وحاجة قلنا جبي أرض دور دفعة إلا أرض دفعة اللي حاد أي ما أنت قلنا جبيسه قياسته ما ترى هذا ما أنت أرض شاقة توافر أرضي مركز كان وحلوه أساسي مال كلا أو عدا عناد نوسي فوقين هذانا وحو كل سنة هي إسلا بولد الحديثة بشار أحمد تقنه وربعين تيستا جارسة